kaftanka fanaanka aan ku bilaabe inanta dhadi ka gudubtee darajada lab ku sii siqaysa tukashada salaadahana dhinacyadu jeegada u xiran yihiin oo markii ugu horeysay fankeeda ka arorisay hooygii fanka Hargeysa Somaliland doorkan ciyaarteeda garoonka Hargeysa oo taarabuunkeedu buuxsamay ayay ku soo bandhigaysaa waa balaayarad aan goolka gafino hareer marin welcome yaa kabayare minankaagi waayo balaayarka xataa haddii kaxla yahay oo dhiikarku karsan yahay dhool la cadeynaya noloshuba farxadda uga siraadan tahay hay'adda warbaahinta Ingiriiska ugu weyn dunidana ugu afka dheer Soomaaliduna iyada mooyaane warbaahin kala aaminan ee BBC gaar ahaan qaybteeda English waxay u aqoonsadeen fanaanka fanaaniinta waxyaabaha ay mucjisada ku tilmaameen waxaa ka mid ah caruur Soomaali ah oo qurbaha joogta oo af Soomaaliba halka laga mara aan garanaynin oo haddana heesihiisa xifdisan kuna heesaya iyagoo Soomaaliya hadda hooyo iyo aabbo maxaan cunaa xataa garan maayaan waana fanaankii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee BBC English ay ka faalooto ninka xataa BBC-du calankiisa haysan weydee birta dheer ay ka taagtay ay Soomaaliduna dabkiisa baxaya dambas ku shubaya guddiga garoonkana waxa iyagana caloolfaax ku riday xidiga Soomaaliba laga waayay nin kabaha la xidha seeska nambarkiisa oo iminkana garoonkaba laga laayahay fanaan kaliya xataa soo dhaweeya xidhista milyanka oo maalmo kooban uu shabaqa ku taabanayo xataa wuu ku nasanaya iyaguna bila kadib iyagoo hinraagaya ayay goobta imanayaan oo xaalkoodu waa milyan uun ma gaarnay suldaan ina Seraar Guhaad waxa lagu tolay darajada suldaanka milyanka cid ka daba qaylinaysa ama ka daba murmaysaana ma jirto inantii islahayd waxaad qabsataa rooska ugu cajiibsan garoob hablo iyo wax dhadig sheegta noocay doonaan baha ahaadaane fanaaniintaba soo xaadirisa iyadoo angal u soconaysana ay madasha soo gashay soo kuwan xisaab kale iskugu dhuftee ilaa booliskii Norway la meereysay maaha nasteexayndo laakiin wallahi weli way qoslaysaa deyrka Mareykanka Trump iyo buuraha Hargeysa waxay la meereystaanba ina Cabdiraxmaan iyo ina Muuse Cumar waxay caawa qaadayaan ahaato noo ahaatay inaga weyno ahaatay inantooda yarna waxay ugu jiibinaysaa kuwaday saasaan kuwaday xafiiska baafintuna doorkan waxa uu baafinayaa fanaanada King Jaamac oo inoogu wardambeysay iyadoo nolosha xalkeeda raadinaysa fadlan ciddii aragta ha u sheegto in ay diyaariso madasha ay ugu dabaaldegi lahayd fanaanadii ugu daawashada badnayd intay Soomaali taariikhda aroor walba YouTube wax ku soo gurayeen oo xataa qaar maryaha u dhigtoon qaawana ugu soo galeen kaftanka fanaanka intan haynoogu ekaa